نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد يقول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإخوة والأخوات، موضوع الحريرة اليقين رنهانتي قفك الشيء يا إذن كجباه بدن وموضوع نسلايا هاي haddii dhibic ka midihi nolosheenna laga helo in isbeddel weyn ay nolosha ku iman karto. yaqiintu waa hubaal, shay la hubo oo shaki iyo dahsoonaan iyo qarsoodi intaba aanan lahayn. sida iskriinka ku hor yaal aad aaminsan tahay qofka kaaga muuqdo inuu hebel yahay, sida kursiga aad ku fadhidid aad u hubtid inaad fadhidid, sida markaad istaagsan tahay aad u hubtid inaad taagan tahay, sida gacantaada midna midig inay tahay midna bidix ay tahay shaki aanu kaaga geli karin. oo hadduu qof ku yimaado uu ku yidhaahdo gacantan waa midigtaa kugu yidhahdo waa bidix, waad u dhihi kartid maya, macquul maaha. yaqiintaanu ka hadlaynaa taawe. haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa 10 qodob oo aan jeclaan lahaa qofkii qalin iyo warqad watana in uu qorto qodobada ugu door karona mawduuca, qofka kalena mobiilkiisa uu ku qoro. 10kaa iska raadi, iska dhex raadi. ma waxaad ka waafaqday mid, ma 2, ma 3? adigu isi sii calaamadda, isi sii markiska, isi sii. kadibna ogow inta kalsoonidaadu gaarsiisan tahay, ku xirnaashahaagu inta ilaahay subxaana wa tacaala aad ku xiran tahay intay gaarsiisan tahay adaa isqiimayn kara. qodobada aan ku bilaabay biidn illaahi subxaana wa tacaala. dadka ahlu yaqiinta ah waa dad aaminsan shaki aanu kaga jirin waxyaabahan dahsoon ee ilaahay subxaana wa tacaala inaga qariyey, inay janno jirto, inay naaru jirto, in la isa soo saari doono, in ilaahay la hortegi doono, in la isweydiin doono, in acmaasha la bandhigi doono. in kasta iyo qayb walba ee diinta ka mid oo nebiga uu ka hadlay wax shaki kaga jira markaa ma laha. waxaa muujinaya marka qodob walbaba mithaalkiisa tusaalihiisa aan siin doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala. saxaabatu rasuulillahi sal alla alayh wasalam marka janno iyo naar laga hadlo runtii waxaad moodaa ra'ya alcayn inayba hor taagantah, sida kamaradu ay ku hor taagantahay ay kugu muuqato, sida hoolkaad ku dhex jirtid uu kugu muuqdo aad is leedahay halkanna waxaa kaa xiga gidaar, halkanna waa saan qaafkii meeshii sarraysay. aljanna wannaar marka laga hadlo ninka saxaabiga ah way u muuqatay. waxaa dhacday nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixa ahaa markii dagaalkii badar loo socday bay muuminiinta waxay ka hormareen, mushrikiinta waxay kaga hormareen ceelkii badar. wuxuu ahaa taagtiig xarbiya ee nebiga uu qorsheeyey, qoondeeyey, uu yidhi war nimankan aanu ishayno dagaalka aanu la geli doonno yaanay nooga hormarin halkii laga waraabi lahaa, laga cabbi lahaa. kadib markii meesha ay tageen buu nebiga sal lla alay slam hadda wuxuu yidhi cid idinka mid oo tallaab gedisa ayaanay jirin, wax dhaqdhaqaaqa iyo wax ma aragtay waxba soo qaadina, waxba ha samayna, anugu dhiga war suga. waxaa dhacda marka nebiga sal lla alay slam markii meesha la gaaray kadib ayuu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, hal mar buu la hadlay ilan ciidankaa la hagayaa, quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalard. kelmadda buu nebiga ku dhawaaqa, u hinqada, u dhaqaaqa janno ballarkeedu uu gaarsiisan yahay cerarka iyo dhulka. hadda waa kelmad uu nebiga sala allahu alayh wasalam yidhi, janna la sheegay. halkaa marka waxaa ka muuqata kelmadda nebiga sal alla alayh wasalam uu leeyahay
oo uu ku dhiirigelinayo oo uu rabo inuu ku tirtirsiiyo inaanay ka gaabin halka ay ku sii socdaan buu wuxuu yidhi dhaqaaqa janna muuqate waxaanu taagannahay goobtii dagaalka waxaa kuurka isku haya ciidanka muslimiinta kuwa gaalada ah waad garan kartaa marka ay taagan tahay tira iyo lixaad markay taagan tahay muslimiinta in lagaga leeyahay waxay ahaataba nebigu wuxuu yidhi wuxuu garaacay nambar culus ilaa janna markiiba ay kelmaddaasu dhagahooda ku soo dhacday dhagaha saxaabada sala allahu alayh wasalam ayaa waxaa istaagay nin lagu magacaabo saxaabata rasuulillahi sal alla alay wasalam ka mida ayaa intuu istaagay ayaa wuxuu yidhi nacam anuu diyaar baan ahay buu yidhi kadib buu haddana wuxuu raacay bakhin yani bimacnaa waa maxay waa meeshuu qofka ka dhihi lahaa wixii aan rabay baan helay ekisyoonaa yimid fursad baa timid opportunity baa yimid meeshuu ka dhihi lahaa wey kadib nebigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi niyahow maxaa kugu xambaaray maxaa keenay inaad kelmaddaa tidhaahdid wuxuu yidhi rasuul allah wax kale ma dhihi ama yani kelmadda markaan lahaa ujeeddada waxayd waxaan rajo ka qaba oo higsigeygu yahay inaan dadka la sheegayo laleeyahay ilaa jannatin carduha samaawaat loo bandhigay inaan ka mid noqdo arag ninka saxaabiga ah markiiba yaqiinta certainty yaqiintiisu waxay gaarsiisan tahay hubaal amaba sida u hubo inuu jannadan uu geli doono wuxuu yidhi rasuul allah marba haddaad adigu tiri dhaqaaqa oo cadowga markaa jibaaxa oo madax isugu tuura dagaalka mar haddaad tiri way iga dhaadhacsan tahay buu yidhi saasaa igu bixisa buu yidhi sida markuu yidhi kadib ninkaa wuxuu sameeyey salawaat ma aragtay radia allahu canhu ardaahu timir uu cunayey buu jeebkiisa ka soo saaray kadib buu wuxuu yidhi wallaahi haddiiba nololu ay ila raagto ilaa aan ka dhammaystay timirtan jaabka igu jirtaay idan wuxuu noloshu waaba igu dheer tahay buu yidhi halkaas intuu ku fadhiyey buu haddana halkaa marka aaday markuu sidaa sameeyey kadib buu dagaal intuu galay ilaa uu ka shahiiday waxaan rabaa inaad ila fahamtaan hada asaxaabiy aljaliil dareenka markiiba ku soo duxay iyo waxa uu dareemay oo ah markuu nebigu yidhi janna waxaa u caddayd marka nebiga hadduuba janno sheegay jannada inaan la seegayn oo cidda jannada loo ballan qaadana ay tahay qofka u dhaqaaqa dagaalka ee cadowga markaa madaxa geliya qodobka marka waa qodobka koowaad waa inay kaa dhaadhacsiisan tahay marka lagu yidhaha salaadan markaad tukatid intaasoo darajaa laga helaa jamaaca markaad ku tukatid 25 darajo leedahay qofkii sadaqa la baxaayey guri baa jannada loogaga dhisaa qofkii 12 ragcadood daa'imaay waa inay kaa dhaadhacsan tahay inay waxaan wax sax yihiin oo aanuusan shaki kaa gelin taa marka maxay kugu bixinaysaa camalkii wasaaricuu iyo wasaabiquu iyo baadiruudii lalahaa inaadan gaabin oo aad degdegtid oo qofka uu tartamo maxaa yeelay meesha waxbaa yaal wey iyadoo haraad uu ku hayo haddii biyaha meesha lasoo dhigo lagu yidhaahdo qofka ugu horreeya ayaa iska leh baralkaa biyaha meesha yaal qof walba wuu soo cararaya idan kow waxa ugu horreeya ee lagu yaqaan dadku sifaatu almuttaqiin ama sifaat ahli yaqiin in ay rumaysan yihin waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka qariyey qodobka labaad ee muhiimkaa wuxuu yahay waxay aaminsan yihiin in risqiga waxa la cuno provision sustenance waxa la cuno ilaahay gacantiisa inuu ku jiro qof kale ee bini aadam ku haya ma laha hay-ad ku haysay ma laha sharikad ku haysay ma laha cid kale adiga ku biili lahayd ma laha risqan markuu go'o cidda kabaysaay huwa alkhaaliqu jalla wacala macnahaas waa macna markaa muhiimkiisa leh ilaahay wuxuu yidhi waa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun samadaasay jirtaa ayuu jiraa risqigiinna waxa ilaahay subxaana wa tacaala idin yaboohayo markaasuu ilahay wuxuu raacay fawarabbi الsamaa'i waalardi inahu laxaqun مثل ما أنكم تنطقون أما مثل ما أنكم تنطقون في رواية مثل ما أنكم تنطقون حلقة وضع قفك مركو هضلي يا إسكا شكينيسا إناد أديقا تهي حباديعي كرتب قفك لهذا الكيسو دقاها كوبتين هذا بكا شكينبا سيداسو رزق قنايا هاي سيدا إلهي سبحانه وتعالى إنكو قيا بوهي تام مركا يقعد عد عسيسان تهي كو وحا يقعد تيجي والكترادة بضان إني قفك هرددو أي كاتك تيرا شقادة أمامد ويذابا ama qofkii inuu is yiraahdo markii jeebka minus uu soo galo ama aad gaajo u dhimataa intu way ka baxaysaa dad far badan inaga naga mid yihiin ee ordaya ee dollar iyo diinaar raadinaya ee aanan u aaba yeelaynin waxuna ma xalaalba ma xaraamba wax kale ma wuxuu isleeyahay waxba ku dhaafin masba waxa leeyahay maxaa saan ugu socotaa wuxuu yiraahdaa wuxuu dhaafin baa isleeyahay qofka sida u dhaqmayaad arkaysa
وقف runtii ay ka maqan tahay yaqiinta ah risqiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gacantiisa ugu jiro waxa dhacday fi sida culimadu ay warinayaan waxaan keenaynaa insha Allah examples iyo tusaalooyin waxa isugu yimid ninka lagu magacaabo حذيفة المرعشي سليمان الخواص يوسف أسباط صدق هذا ولا شاكيست هل يري waxaan u baahannahay in la qeexo maxay tahay hodantinimada qofkan ilaahay wuu hodmeeyey hodantinimuu siiyey deeqsinimuu siiyey qofka kan waa uu dhargay markaan leenahay maxaan ku qeexi karnaa ninka kamid wuxuu yiri man lahu baytun yukinnuhu wa thawbun yasturuhu wa sadadun min 'ayshin yughnihi 'an fadl an-nas qof leh guri astura mara uu xirto iyo caysh yar wuxuu cuno oo dadka marka uu kaga maarmo ninka la weydiyo waxa dhabar ka waran adiguna wuxuu yiri qofkan dadka u baahan qof walba markuu doorkiisii uu gutay baa waxa doorkii waxa la soo gaaray Sulaymaan al-Khawaas waxa la yiri ya aba ayub adiguna maxaad dhihi lahayd intuu ooyaba wuxuu ra'aytu jawaami' al-ghinaa fi at-tawakkul markaan u koor galay nolosha waxa ii soo baxda buu yiri hodantinimada marka la ururiyo inay isugu soo biyo shubanayso إن إلهي سبحانه وتعالى هو كان كله ديب الله تعالى صارت كو ورأيت جوامع الشر من القنوط مركان ديب يقول الله بتهدنا وحا يصب بحده شر دم بهالك أي كسو أسكن طاي كتيمادو إن يتهاي قفك إنه ها وقوسته مركز الرعية والغنى حق الغنى هذا ضربتان مركا إن فهمتان ما حد يقصيني والله دها من أسكن الله قلبه من غناه يقينا وقفك إلهي قلبي سأودجي يقين وغنى إلهي سبحانه وتعالى وكسوام يقين ومن معرفته توكلا أقوان أهانا مركي قارسي سنتهانا إلهي حرق أديبتي ومن عطاياه وقسمته إلهي سبحانه وتعالى ومن عطاياه وقسمته وحو إلهي بحين رضا راضي كن نقضه هبا النقضة بيحير وإن أصبح حليبا مركو سيحاني إسوغو بقلا بها السحضو حلي مركو سيحاني إسوغو هراسن بها السحضو إسوغو وحي بريو عوني لها آني إسوغو توسنين بها السحضو إسوغو جيب كيسو أي بريهين بها السحضو قف كيرا هذا إلهي وأذان أرنك كو ديبتي طلادا إله أذي قعنتا ذا كو جرتا شركة هدي إسو إري لهيدي هدي إديسان لهيد بإيدي أطال يا رب العالمين هي أدن هدي إيقا أقبالي لهيد طلب كيجي عسي كيجي هدي كلا إيدا أذي إلهي سبحانه وتعالى ذي كوتال يا رب قفكم مركو هقانك إلهي سبحانه وتعالى وديبه مركا صالة ديه كرا يقين إلا أيتا نقضى دعيس إلا هيرك أنو كجارين يقين تينا ما نسبة كجرة ولذلك أقول مركو النبي صلى الله عليه وسلم يري نف إسكجيريون يسي ملهن إلا أي كذا ما يشترطه وحل وحي الله سبحانه وتعالى وقرأ عليها إن صالحين تكمذا وهذا اللي يحيري وأبو حازم في الدنيا ذا مركان إياه نول بابا كأجا وحا يصاب بحدا ويري إن الله بقى أنك كوابانته وحن أنا أقول هاي يوحدت كلاليه وحن هو بابير وحن أنا قال لي هدي قف كستا الدنيا جوجا نلاش الدنيا أرضنا نقول كذا كدل تكوبيه وإسكت ضيو حالات ضلبي تبل بقى وهلي كره هدو استعماله إن واحد جيب كي كجر والله بحون سلم به كريم أنا واحد يقعد على حسب رشيق كله وحقف كله لو سوقون دي رزقي جس إن أنا قادن كريم مرة هذا سيداتها محل الله تقال لما يا محل يسكو إريانا يا محل يدك كلر كيسكو هيستان محل أول ولا يا محل يدك تقال كوجود جيران مرة هديبة رزقي إله أديك كوقر جرام بالله إلهي سبحانه وتعالى كوقون دي waxaa laga yaabaa noloshaada in la yiri hebel inta ilaa uu ka dhimanayo $10 baa ku filan in lagu yiri marba hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala oo damaana qaaday halka inay kaaga xiraato way waa meesha uu leeyahay tawakkaltu fi rizqi ala allah khaliqi wa ayqantu anna allah la shakka raziqi qodobka saddexaad dadkan ajaa'ibta leh xaqa meel ugama leexdaan hatta hadii barnaamij farbada lagu furo xaqu ku cadiye meeshaad abaari lahayd halka aad u jihaysan lahayd waxa dhacday kacbada iyadoo lagu jiro ayaa waxa soo galay khaliifihi Hisham ibn Abd al-Malik kacbada waxa tawaafaya Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab waa wiil oo Umar ibn Khattab awoowo u yahay waa taqaanaan Salim taariikhdiisa طبعا
marka la dawaafi waad aragtay kacbada round baa la gelayaa waa la wareegsanayaa waxaa garabka isku qabtay marka ninkii khaliifaha ahaa amiiru lmu'miniina iyo saalim oo dawaafaya kadib buu khaliifihii baa initiative ka bilaabay isagaa la yimid wuxuu yidhi saalim waxay weydiiso maxaad u baahan tahay markaasuu wuxuu yidhi saalim wuxuu ku jawaab wuxuu yidhi anuu beydka ilaahay ku jira waan ka xishoonayaa qof bini aadam inaan gacan hoorsado maxaa yeelay rabbulbeyti baaban beydkiisa dawaafayaaye ma qof bini aadama maanta wax weydiistaa ka aamusay dawaafkii baa lasoo dhammaystay dibaddaa loo soo baxay kadib wuxuu yidhi wuxuu islahaa marka hishaam markaa waxaa ku qufullayd ama uu islahaa ninka kan kacbaduu diiday wax kugu weydiista bal hadda ku day markaasuu yidhi ka waran haddana markaasuu wuxuu yidhi wuxuu waa labo adduun iyo aakharo aakharo horta gacanba kuma haysid soo maha adduun soo maha rabbigii adduunyada gacanta ku hayay oo beydkiisa aan dawaafay baaban weydiisan intaan ilahay wax weydiisanayay aakhara un bay la xiriirtay mar haddii rabbigii gacanta ku haya adduunyada aanan weydiisan maadaan ku weydiisanayaa biil qofka muuminka arag cardi walba meel bal kaaga yimaada inaad fahmi kartid weeye halka qibladaadu tahay meesha aad u jihaysan lahayd cidda aad u gacmo hoorsan lahayd cidda aad isu bihin lahayd yaa khasnadan haya yaa gacmaha loo taagtaa yaa la baryaa yaa wax la weydiisaa waa inay kaa dhacsiisan tahay waxayna ka mid tahay qodobada dadka muslimiinta amaba looga baahan qofka muslimka marka inuu fahmo qodobka afaraad ee muhiimka isna wuxuu yahay dadka ahlu yaqiinta ah ama ahlu yaqiinka ama yaqiinta leh kitaabka ilaahay bay ku camal falaan kitaabka ilaahay bay u xuguntamaan bimacnaa waxaan ka wadaa kitaabka ilaahay xukum ka dhigtaan ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala markuu kitaabkan uu soo dejiyey waa kitaabka waa buusaladii inahagi lahayd wey waa dastuurkan ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay bashariyada aadanaha ugu talagalay waxa tubta toosan ku toosinaya inuu tusiyo waxa ka weecinayna inuu ka qabto kitaabka saasaa loo soo dejiyey inuu noqdo instructions guidance wixii lagu hagi lahaa ummadda halkan bay jannadu waddadeedu ay tahay halkan raac naarta waddadeeda waa tan war ka istaag saasaa loo soo dejiyey qofka muuminka marka inuu ogaada sharciga ilaahay marka lagu camal falo in ilaahay aad u dhowaanaysa ilaahay wuxuu yidhi tuuga xukumkiisa waa sida kan qof dilaayay sidaa way xukumkiisa qofkii ma aragtay la yimaada dembigan waa kitaabka ilaahay lagu camal falo maxaa maanta muslimiinta u diidaya mar kasta lasoo qaro dastuur diiniya lasoo qaaday maxaa u diidaya wuxuu aaminsan yahay wuxuu isleeyahay hay-aadkii oo dhan baa xiriirka kuu jaraya wuxuu aaminsan yahay in noocan maa cunaqabatayn lagu soo rogayo wuxuu aaminsan yahay laakiin qofka markuu isku kalsoonaadu yidhaahdo war ilaahay subxaana wa tacaala isaga ina yidhi haddii ay ku camal fali lahaayeen waxa ilaahay uu soo dejiyey lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard kor iyo hoos baan waxaan kaga keenayna risqi kalsoonidaa markay nagu beeran tahay oo ilaahay ilaan ballanqaad buu ina siiye waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa'an ghadaqan waddada toosan haddii ay ku socdaan waxaanu ku waraabinaynaa biyihiina waa casabu alxayaa marka biyo la helo nolosha inteeda kale iyada iskeenaysa qofka muslimka in horta ka dhaadhacsan tahay muslimiinta maxaa maanta dib u goray oo inagu xiray man made law wax uu bini aadam gacantiisa ay ku samaystay shallow minded ah feeble ah oo maskaxdiisu aanay fadhin oo ra'yi maanta uu yidhi beri u ka laaban kara maxaa inaga inagu dhajiyey wax kale maaha bimacnaa waxaan aaminsannahay amaba yaqiintii ahayd kitaabkii ilaahay baa lagu hormaraa kitaabkii ilaahay baa meesha la raba lagu gaaraa kitaabkii ilaahay bay ummaddu ay waxay u baahan tahay ku gaari kartaa intuba nolosheenna kuma jirto waxay keentay marka qofka marka inay zaczaca ku timaado waxaa kaloo iyadana muhiima qodobka shanaad ahlu yaqiinka waxaa lagu yaqaan tilmaamahooda waxaa ka mid a qur-aanka xaraf walba ee ku yaal iyo kelmad walba ee ku taal iyo weer walba ee ku taal jumlo walba ee ku taal sida ay tahay u aaminsan yihiin waa goormo laakiin aniga aan aamini karaa waa marka aayadda iyo tafsiirkeedu iga dhacsiisanta waxaa dhacday nin dadkii salaf hadihi alumma ah ayaa kitaab qoray kutubta marka la qorayo nusakh copies bay leedahay waad aragtay yani copy buu qoray aad iyo aad u tiro badan oo volumes mujalladaad ka kooban sida maanta waxaanu dabcan photocopy iyo forostate iyo waxbaan isticmaalnaa oo si loo badiyo marka iyagu waraaqiinta ay aadayn si markaa loo badiyo lacagna ma haysto wuxuu rabaa kitaabkii inuu inta badiyo oo dhowr koobi uu ka dhigo kadibna uu dadka u qaybiyo rabaa shilna ma haysto doon buu ku soo dhacay
wuxuu isku sii shubay xaggaa iyo nin uu isleeyahay ninkaasaa xoolaha hayste bal wax weydiiso waddaduu soo maray yani bimacnaa baddiibuu markaa doontiibuu soo raacay waddada intii la marayay wuxuu arkay nin waddada taagan oo raba cid meel gaarsiisa laakiin noocan maa nooligii iyo wixii markaa uu isaga bixin lahaa transportiga aanan haysan ninkii doonida waday wuxuu ku yidhi ninkan maad caawidid buu yidhi markaa aad qaad buu yidhi hana raaco markaasuu yidhi soo far tafadal markii la soo fariistay meesha buu ninkii wuxuu gartay ninka kan caalimkuu gartay wuxuu yidhi ma hebel baad ahayd markaasuu yidhi ha halkee ku socotaa markaasuu yidhi kitaab baan qoro kitaabkii waxaan rabaa inaan badiyo oo nusakhdiisa badoo koobi fara badan aan ka sameeyo laakiin shilinkii aan ku samayn lahaa ma haysto oo hebel baan rabaa oo ninkan xoolaha leh inaan inta u tago aan idhaahda bal nihu iga caawi arrinka kan iyadoo maadiyan u baahana ninkan marka la soo qaaday ee la siiyey waslada la siiyey ee liftiga la siiyey ee meesha saaran ee su'aasha bilaabay baa wuxuu ku yidhi ninkii caalimku wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyey waxaad qortay soo tafsiir maayn haa qur-aanka ilahay fasirtay soo maaha markaad maraysay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maxaad ku fasirtay buu yidhi ilaahu adiga keliyaan hee ku caabudaynaa adiga keliyan wax ku weydiisanaynaa ninkii caalimka wuu fahmay su'aasha ninkan caamiga uu weydiinayo inuu leeyahay war wa iyaaka nastaciin ilaahu adaan wax ku weydiisanaya mar haddii la yidhi siday ku dhacda adoo tafsiirkii fasiray oo sheekhii ah oo qur-aankii fasiray inaad safarkaa dheer aad u geshid nin adigoo kale bini aadam wax weydiisid sheekhii markuu fahmay wuxuu yidhi ninkii walaal wuxuu yidhi kale firey dib noo celi buu yidhi meeshaan ka nimid markiiba darsi bay u noqotay dib uu u laabtay mudduu iska joogay gurigiisii kadib nin baa guriga usoo gargaraacay muddo marka laga soo wareegay markaasuu kumaad ahayd wuxuu yidhi hebel baan ahay waxaan ka socdaa hebel waa kee marka waa ninkii maalinkii uu ku socday xoolaha lahaa ninkaabaa ii kaa soo diro wuxuu maqlay buu yidhi hadda cid u sheegta male wuxuu maqlay inaad kitaab qortay marka wuxuu yidhi kutubtiisa ha ii soo dhiibo waxaan rabaa inaan markaa aan u miisaamo waa la miisaamaya kutubta inta culayskeedu oo la egyahay oo dahaba ayaa gacanta loo geliyay lacagtii uu socday ka badan baa ilaahay subxaana wa tacaala siiyey markay naga dhaadhicsan tahay markaan tukanayno hadda ogow waxaad inagu jira dad xanuunsan dad dhibaataysan dad muruga ah hayso dad ciyaalkooda ka walwalaya dad reerihii ka walwalaya dad shaqadii ay ka dhammaatay dad biilkii aanu ku fillayn laakiin 17 jeer anoo ku soo celinaya maalintii ilaa salaada la tukada 5 salaadood 17 jeer baan waxaan aqrinaa suurat al-faatiha haddii in yar walow less than a second wax ka yar ilbiriqsi aan in yar aan u kuurgalno marka aan leeyahay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciinta keliya haddaan qalbiga ku dejiyo oo aan dhadhansado waxa ay tahay macnaheeda sida ay tahay aan u dhadhansado hadday tahay biidn illaahi subxaana wa tacaala xanuunkan ku hayana ilaahay wuu kaa qaadayaayo asbaabtii baa lagu duwa dhakhtarka ugu fiican baa ilaahay kuu geeniyay haddaad adoo jiifkaaga meeshaada jiifta xanuunka aanu kaa qaadin shilinkan aad raadinaysid soo maaha ilaahay subxaana wa tacaala khazaa'inta kuu furayo jeebkan maran soo maaha ilaahay baa buuxinaya ka yar ee kaa habaaba ee suuqa ku jira soo maaha daraagiska la diilgaraynaya ilaahay baa soo celinaya odaygaan aad ishaysaan haddaad tahay haweenayna ilaahay baa kuu toosinaya haweenaydan kugu madax adkaata haddaad tahay nin ragana ilaahay baa toosinaya khilaafkan labada dhuux yaalla ilaahay baa qaadaya guurkan kaa soo dahay ilaahay baa keenaya biidn illahi subxaana wa tacaala kuwanaanan tukanayn ilaahay muslim iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin all we need is to contemplate waxa keliyan u baahannaha waa in hee aan fahamno intaa keliya inta loo baahan laakiin marka iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin iyo anoo karkabaysan aan aqriyo oo macnihii aanan ku tafakurin haddaba gacmo horsigaygu wuu badanayaa albaabo badanna waan garaacaya halkaana dhib baa igaga imanaya mawduucaas waa mawduucan u baahanahay inaan fahamno oo aan idinkaga baahi badana qodobka lixaad dadka mu'miniinta ah waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kan wuxuu dhex dhigay miracles cajaa'ib iyo wuxuu dhex dhigay ijaaz waxaa ka faa'iido uun keliya dadkaana muslimiinta ahayn maanta bal aqri dadka reer galbeedka ah ee soo islaamay taariikhdooda aqri نقول له ليه القرآن كنا نقريه كدي محن أركا آيات وحى كهالليسا كدي منا وحي أي شيء أو scientific fact ما وحن أبربر دقي وحى أنجو أنو برنا أقانا كدي وحى يصب بحذي وحى الشيء إنه صحيحين ولذلك مثلا لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ها وكلا هدي وتقصي وكل عقف إنك إن كم ذا وحى عبي شراب كيسة هوسا وسي تيمبيو محايلة قربنا وحى كوسيتا caafimaad midna wuxuu ku sitaa cudur dad baa ku soo islaamay oo ka qoray researches iyo
maaragtay cilmi baaris ku sameeyey dad baa ku soo islaamay laakiin innaga waxaa laga yaabaa waxaan xustaa saaxib buluuq almaraam taqriirkiisa hoose ama maaragtay haami cala alhaamish nin misri oo xadiidkaa tacliiqay wuxuu yidhi waqtigii nebiga arrinkan suurtagal ma aha jeermis baa ka buuxa dibdan baa loo ogaaday microscope baa lagu eegay buu yidhi waa ninkii muslimka ahaa caalimka ahaa halka nin gaaleh uu ku soo islaamay uu ogaaday wuxuu nebiga sal alla alay wasallam sida uu sheegay inay tahay inaan fahmi karno kitaabka ugu sarreeyay in ilaahi subxaana wa tacaala na siiyey cajaa'ibtiisa walidaalika wuxuu leeyahay sida uu tilmaamayo axad waxaa cataa baa wuxuu leeyahay waxaa aniga iyo cubayd ibn cumayr baa caaisha u nimid markaasa waxaan nidhi caaishoy waxa ugu yaabka badan ee aad aragtay noo sheeg dabcan sootaan isu weydiinayna maxaa kugu yaab badan maxaa kugu qariib badan way isweydiin jireen dadkii salafka maxaa kugu yaabka badnaa markaase waxay tihi waxaan arkay nebiga amaba waxay yidhaahdeen su-aasha waxay hayd si kale aan u dhige waxa ugu yaabka badan aad nebiga ku aragtay sidaa bay su-aasha markaasay caaisha oyna dhaqaaqday markii intay oyday waxay tihi habeenada ka mida ee nebiga intuu yimid wuxuu yidhi caaishoy iska kaydaa caawa waxaan rabaa inaan ilaahay caabude iyadoo nebiga sal alla alay wasalam uu habeen walbaba uu ilaahay u istaagi jiray yaa ayuha almuzammil qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila iyadoo shaqadiisu ahayd wuxuu yidhi bal caawa caaishoy iska kaydaa waan ilaahay subxana wa taala caabudaya markaas waxay tihi rasuul allah wax kale maaha inaan ku ag joogo unbaan iska jeclaystaye howl kale meesha ma jirto waxay tihi marka nebigu wuu istaagay wuu weysaystay salaad buu istaagay salawaatu rabbi wasalaamu calayhim kadibna intuu salaada ku jiray buu ooyin bilaabay sala allahu alayh wasalam wuu ilmeeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labadiisa dhaban ama dhabnood bay ooyintu markaa saa ugu soo tifiqday kadibna xabadkiisa u gudubtay kadibna dhabtiisa u gudub ilaa dhulka markaa ay gaartay waxay tidhi xaaladda isagoo ku jira ayaa bilaal nagu soo garaacayo wuxuu rabaa ilan ma jirin microphoneskan haddaanu isticmaalno salaadda lagu addime inuu yidhaha rasuul allah waqtigii salaadda la gaaray kadib nebiga sal alla alay wasalam markii dabcan lagu baraarujiyey bilaal baa marka wuxuu arkay nebigan xaaladda salawaatu rabbi wasalam iska ooyey sal alla alay wasalam markaasuu yaa rasuul allah adigoo dembigaaga kii horreeyena la dhaafay kii dambeeyena la dhaafay miyaad weli intaad taagantahaad ooyeysa wali riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin nebiga wuxuu taagnaa ilaa labadiisa gomadood ay ka dildilaaceen markaasuu nebigu wuxuu ku jawaabay afalaa akuuna cabdan shakuura oo ma waanan ahaanayn addoon ilaahay subxaana wa tacala u mahadnaqa haddii dembigaygii kii horreeyey iyo kii dambeeyey baa la dhaafay waxaa dawa ila gudboon inaan ilaahay subxaana wa tacala ogaga mahadnaqo nicmadan ilaahay subxaana wa tacala ay siiyey kadib wuxuu yidhi marka halkaan u socdo waa tan caawa waxaa laygu soo dejiyey aayado waylun liman qara'ahaa walam yatafakkar fiiha qofka intuu aqriyo aayadaha aan dhadhansanin macaanidooda u kuurgelinna halaag baa u sugnaaday markaasuu inna fii khalqi الsamaawaati wاlardi واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار آياتها سنة بك أقري ومعنى ذو إياه إثبت بدلك كو إيمان يا هبينك يا مالك أما إيوه وحا إلهي سبحانه وتعالى ودح دقي ملكوت كان ودح دقي علامة وين با كجرا waxay calaamad u tahay dadka markay ilaahay xusayaan iyagoo taagan xusa iyagoo dhinac u jiifa xusa iyagoo dhabar u jiifa xusa xaalad bay ku sugan ilaahay subxaana wa tacaala xusa halka marka waxaa laga qaata marka bimacnaa xalay mugdi baa ahayd gudcur bay noqotay ilays ma jirin maanta iftiin baa jira qofku inuu maaragtay aadan for granted aadan ka dhigin oo aadan dhihin khalaas waxaan waa iska normal ilahay wuxuu leeyahay fi aakhir مركو تلمان في آخر سورة الرعد وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون بل أركا وحا إلهي علامات ودحدق عركا يقولك أضدك سأستقود بيان أنا وابيالي عركا مرة بابا مذب كاسو نولي سنة قورو للرنجية مالها ود حالي استي مذب كالها الله سمي مالها قولك واتن إلهي سبحانه وتعالى سيدان قفك مركو حبها هاي مركو إنه التفكر سمي تفكر محا إيمانيو قولك هاس مركو الله دعا علمي جيولوجيga wuxuu nabaraya waxyaabo cajaa'ib leh cilmiga ma aragtay marka dhulka la qoday wax laga soo saxbuu nabaraya plantationka iyo waxbaan ka faa'iideynaa allah musta'an dhirta ay sida u samaysan tahay ableenteeda iyo sida marka ay u tilmaamaan ragga takhasuska leh waxbaan ka faa'iideynaa botaniga waxbaan ka faa'iideynaa inta marka wax loo baahan ama noqo adigu qof mutacallima noqo dhanka wax u badi
haddaadan ahayn cala aqal dhegayso wixii marka culimmadu ay ka yidhaahdeen taana waxay ka mid tahay tafakurka waxaa kaloo iyadana muhiima inaan fahamno qodobka kale ee toddobaad dadka ahlu yaqiinta tilmaantooda waxaa ka mid a waxay aaminsan yihiin wax tar haddii cid wax ku tarayso iyo dur iyo haddii cid wax ku yeelayso intuba nafci iyo durba gacanta ilaahay bay ku jiraan qof bini aadama wax kuu qaban kara markaa male xadiidkii ibn cabbaas waa taqaanaan nebiga anoo fan gashan buu yidhi wuxuu yidhi yaa ghulaam waxbaan ku baraya dhegayso kadib uu ila hadla wuxuu yidhi ilaahay xuduuddiisa ilaali ilaahayna wuu ku ilaalinayaa haddaad wax weydiisanaysidna ilaahay weydiiso haddaad kaalmo weydiisanaysidna ilaahay weydiiso ogow buu yidhi hadday ummadoo dhan idaylkood meel kastoo ay ka yimaadaanba intay meel ku soo ururaan iyadoo ujeeddadoona ay tahay in adig wax lagu taray inaan wax ku tari karin hadday isku tagaan iyagoo dhanba ay rabaan in adig wax ku yeelayaanna inaanay wax ku yeeli karin maxaa yeelay qalinkii wax lagu qori lahaana mar hore ayaa la kor yeelay waraaqii wax lagu qori lahaana mar hore engegeenoo qalleen buu nabiga sallallahu alayhi wasallam halkaa marka waa maxay darsiga ugu culus meeshaad kala bixayso waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala unba wax ku yeeli kara isagaa nafciga keeni kara isagaa durka keeni kara mabda'a inuu naga dhaadhaco laakiin qofku waa inuusan dhihin ama xagga dhibiga ka yimaadaan ama halkan wax ka yimaadaan oo qofku uu noqon qof isaga dhanba afarta jiha marka laga haysta sinaan ibn abi sinaan addu'ali iyo salamta cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi jaabir baa inoo warramay oo saxaabatu rasuulillahi sal alla alay slam ka mid nebiga sal alla alay wasalam buu wuxuu u raacay duulaan xagga iyo najid duulaankii marka laga soo dhammaaday oo la soo laabanayay ayuu wuxuu yidhi waxaan ku nimid meel tog ah kadibna dabcan dabka marka duulaanka lagu jiro waa la daalan yahay toggii ayaa waxaa le nin walbaba meeshuu haleeli kara markaa ha dhigta heeryadiisa halkaa markaa ha lagu harsado dabcan nin walba meel buu seexda buu yidhi nebigana geed xoogaa naga fog buu meeshaas seexda buu yidhi kadib waxaan maqlay nebiga inoo dhawaaqayno war kaalaya markaan dul istaagnay ba waxaan argay nebiga oo taagan ee nin carabi meesha fadhiya markaasuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam anoo meeshan jooga ninkan reemiyiga intuu yimid buu seefteedii intuu daf yidhi galka kala baxay intuu idul istaagay buu yidhi maxamedow maanta yaa iga kaa celin kara markaasaan idhi buu yidhi allah saa markaan idhi buu yidhi seeftii baa ka dhacda buu yidhi markaasaan gacanta ku dhiga buu yidhi nebiga sal alla alay wasalam isagoo aan u jawaabin ileen raxiim buu ahaa aanan ka argoosan halkaa marka waxaan ka qaadanaynaa hunaa yacni markuu nebigu lehay allah nebiga maxaa ka dhaadhacsan yaqiin ah ninkan seeftan gacanta uu ku sito inuusan nebiga waxba ku gaarsiin karin markay naga dhaadhacsan tahay birtan haadaysa inaanay waxba na gaarsiin karin wax yeeli karin in ilaahay subxaana wa tacaala keena maahana wax bini aadam inuusan nacfi ii keeni karin yaqiinta laguu sheegay intaa wey laakiin intaan aaminsanahay haddaan waxaan sameeyo xaggaasaa wax ka imanayaan iyo xaggaasaa dur ka imanaya iyo hebel baan shinsanaya iyo isagaan ka sugaya nafciga halkaa wey marka nambaradu marka isku dhex daadanayaan waana qodob markaa meeshiisa leh walidaalika xadiidkii dheeraa nebiga uu ka hadlay ee suhayb ee muslim aad xifdisan tihiin wiilkii yaraa ee u dhexeeyay labada brofesoorka diinta bartay ee raahibka ahaa iyo brofesoorka magicianka ah ee sixirka bartay dabcan waa lagu boqorada ka mid ah xilligaa noolaa waxa lagula taliyey waxaa la yidhi dabcan waxaad u baahan tahay qof la taliye ah iyo saaxiib baad u baahan tahay dabcan saxarada marka isaga la shaqaysa ee consultation board kula jirta waa wixii sixri u sheegaane ayaa waxaa la yidhi waxaan u baahanaa wiil yaroo lagu tababaro kadib waxaa loo diri jiray nin saaxira saaxirkii uu aadaa class buu ka soo qaataa wuu sii socdaa wuu soo socdaa intuu waddada ku jiray wuxuu bartay nin raahib oo diinta yaqaan kadib wuxuu la dhacay ninka kan raahibka ah ee ahlu diinka ah waxa uu sheegayaa galay kadib wuxuu bilaabay inuu xoogaa ka segseego oo on time aanu ku tegin halkuu aadi lahaa kadibna dhib baa waxa ku yimid gurigana waa laga qabsadaayo markii uu halkaa ku soo daaho kii saaxirkana uu ku dhagaa kadib uu ninkii odayga intuu u tegay caalimka wuxuu yidhi dhibkaasaa haysta wuxuu yidhi markaad guriga ka raagtidna waxaad ku tidhahdaa saaxirkii baa isoo daahiyey saaxirka markaad ka raagtidna waxaad ku tidhahdaa guriga laga soo daahiyey intaa un dheh si wuxuu ku socdaba ayaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu qadaray maalin maalmaha ka mid ah iyadoo waddo iyadu ay kala go'day oo dadku xagga isu dhaafi waayeen waxaa kala gooyey maaragtay daabad aad iyo aad u weyn culimada qaarkood fiil bay dhahaan asad waxaa doonteen dheh adigun wax muftarisa oo dadku ay xagga u dhaqaaqi waayeen baa ilaahay subxaana wa tacaala meesha keenay markaasuu wuxuu yidhi wiilkii yaraa maantaan ogaanayaa masaaxirka wuxuu sheegayaa runa mise ninkan caalam diineedka wuxuu sheegaya dhagax yar buu qaatay wuu ku tuuray markiiba daabadii halkaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka takhallusay dadkuna saabay marka isku dhex galeen halkaa markii arrinkiisa uu shaacay ayaa wuxuu ku yidhi ninkii raahibka niyow maanta waa dalcday buu yidhi
heeraan anigu gaarin baad galeen waa macna inuu wuxuu yaqiinsanaado khayr yani wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu sameeyaa samaysmi kara wuxuusan ilaahay samaynina ma samaysmi karaan markay qof ka dhaadhacsantahay waa macnaheedu kadib waa tan uu nin boqor ka mida boqorka la taliyaashii ka mida uu indho beelay kadib waa tan uu yidhi niyo waxaan u baahanay inaan hadiyad ku siiyo indhaha ii soo celisid markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala indhaha soo celiya kadib buu wuxuu yidhi rumee markuu rumeeyey kadib uu islaamay wacalaa kullin ninkii raahibka baa la hadlo wuxuu yidhi warniyahow dhib baa ku soo gaari doona laakiin marka lagu qabsado aniga ha u sheegin dadka ilmihim waxay socotaba boqorkii baa ka war helay wiilkan inuu dallacay oo gaaro heer uu sabab u noqon karo dadka inuu indhaha u soo celiyo in baabkii isaga marka uu la rabay ka duwanna inuu ku jiraba kadib wuxuu yidhi ninkaa laga takhallus waa tii la qaado la buurta dakadeeda fiideeda sar halala fanto oo halkaa laga soo tuuro meeshii marka la geeyay wuxuu yidhi allaahumma kfinihi bima shi'it buurtii baa intay ruxantay intii waddo oo dhanba meeshaasi marka soo shalwadeen ilaahay waa soo badbaadiyey ninkii oo soconayaa yimid boqorkii wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay ilaahay baan baryay buu yidhi iyaga ilaahay subxaana wa tacaala iga kaafiyey waa la qaaday wuxuu yidhi badda inta dooni ku qaadaan bartanka markay maraysa halkaa hala rogmato oo markuu maashooda meesha kaga soo dhaqaaqa mar kalaa la kaxeeyey allahuma kfinihi bima shiit ilaahu iga badbaadi iyagu unbay la ruxantay halkaaba marka ku maashoodeen keligiisaa soo badbaaday aakhirkii wuxuu inuu dhegayso dur iyo nafci bay ilaahay gacantiisu ku jira haddaad rabtay inaad aniga wax yeeshid buu yidhi ima yeeli kartide mid baan kugula talin lahaa buu yidhi ninka markan wiilkan ghulaam weeye waa wiil yar hadaf buu leeyahay higsi baa marka u qarsoon wuxuu dadkoo dhan meel isugu keen markaa isugu keentid kadibna gabooyahayga waxaad kala baxdaa buu yidhi fallaar kadibna bismi illaahi inaad dhahdid oo magaca ilaahayna aad sheegtid oo aad dhahay wiilka kan rabbigiisa intaad tiraahdo igu soo tuur buu markaas unbaad samayn kartaa buu yidhi laakiin biduuni alisticaana billahi jalla wacala waxba ma samayn kartid buu yidhi wiilka hadafkiisa muxuu ahaa dadku inay meel isugu yimaadaan xaqiiqda ay arkaan in ghulaamka kan wiilkan rabbigiisa inuu yahay rabbi xaqiiqi aanu ahayn boqorka inuusan ahayn waa tii ilaahay subxaana wa tacaala meesha uu qadaray wiilka markuu meesha ku shahiiday waa tanay dadku yidhaahdeen waxaanu rumaynay allah rabbi alghulaam halkaa marka waa qisata asxaab alukhdud baa ka bilaabanaysa waxaa loo gol leeyahay marka the bottom line qisada ay xambaarsan tahay waxay tahay in la fahmo duriya nafciba waxaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisu ka imanaya qisadan waxaa ku jira darsi kaloo muhiima oo badanaa waxaa dhici karta yaryarku gaar ahaan dadkeenna meelaha ay wasiga ka yimid in subaxiina uu aado meel diin kale lagu soo aqriyo marka uu guriga ku soo laabtana malcamadii iyo dugsi qur-aankii loo aqriyo xaggana boqolkiiba konton darsi uu soo qaaday intana boqolkiiba konton ama boqolkiiba toddobaatan waxaan ogahay mar kasta oo looltan uu dhex maro xaqa iyo baatilka waxa halka ghalabada iyo libta ay ku dambayn doonto waa maca alxaq biidn illahi subxaana wa tacaala weligaa ha quusan kuwa aad dhashay hal saac haddaad heli kartid once in a blue moon bishii xataa hal saac haddaad heli kartid saacaddaasu macnay samaynaysaa biidn illahi subxaana wa tacaala saacad qur'aana waxay ka awood badan tahay konton saacadooda wax khuraafaada iyo wax khaldan la baro iyadaa ka awood badan biidn illahi subxaana wa tacaala qodob kale wuxuu yahay intaan qodob kale u gudbin ayaa sacad ibn abi waqaas ayaa wuxuu rabay dagaalkii furus baa lagu jiray wuxuu yidhi inuu webiga dajle intuu dhaafo xagga ay madaa'in u gudbo kadib nimankii furus dagaalka lagula jiray baa waxay isku gudbeen buundadii dadku isaga tallaabi lahaayeen bridgeka dadka isagala tallaabi lahaayeen kadibna ilaahay subxana wa tacala wuxuu qadaray markii xaalku uu sidaa arkay wax alle wixii dooma ahna ay gacanta ku dhigeen bridgekii la isaga tallaabi lahaana inay iyaga gacanta ku dhigeen hal meel unbaa u bannaan marka there's one way out hal exit baa jira oo ah baddaas ama webigaas inuu maro webi marka la marayna ma sahlana markiiba intuu saa u milcsaday buu wuxuu yidhi hal mar aan dhahna buu yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil wallaahi layansuranna allahu waliyahu وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنة سيد طبري أوريني إلهي سبحانه وتعالى من كل دارتي إلهي بأوهي لنا عيدا كيس إلهي با سينا يا أود إلهي با جبينا يا عدو كيس هدي لكن وحا شردية وحا قردراءه إي دنبي إي معصي إلهي هداني نقول حجرين بمعنى وامحي بضاب ودحمر إلهي سبحانه وتعالى وسهل وأتي النبي موسى إلهي سبحانه وتعالى وسهل waxaa kaloo iyadana muhiima khaalid ibn waliid ayaa wuxuu ka soo laabtay qisadan waa muhiim weeye wax badan waa iftiiminaysaa wuxuu ka soo laabtay meesha lagu magacaabo alyamaam wuxuu afka saaray aljiira oo xagga ixeera
dagaal buu ku jiray Khalid bin Waliid nimankii ahlu Xiira oo dagaal kula jiray baa dhufays u galay القصر الأبيض bay dhufays ka dhigteen kadibna waxay bilaabeen munaafashaad yaroo waxay soo tuurtuuraan dhagxaan bay soo tuureen waxa la waxaysay markay soo tuureen oo ay wax ka dhamaadeen baa nin la socday Khalid bin Waliid Daraas ibn Azuur baa wuxuu yiri nimankan waxa ma hayaana intaan u cidirno cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii aan mufaawadaad negotiation wada hal la sameeyno waan la galno kadib baa waxa soo baxay nin lagu magacaabo Abdul Masiix ibn Amr ibn Qays ibn Hayyan ibn Qabila al-Ghassani nin la dhaho oo 350 jir ah oo 350 sano jira da'diisu gacanta wuxuu ku sitaa sunta isagoo saa u rogrogaya buu Khalid u yimid طبعا qisadan waxa warinaya الإمام محمد بن حنبل في فضائل الصحابة الطبراني baa warinaya في المعجم way soo dhaweynayeen ibn Taymiyyah iyo الإمام الذهبي intuu bay soo dhaweynayeen markuu meeshii yimid baa Khalid wuxuu yiri maxaad waa gacanta ku sidataa markaas yiri sun waayo waxaan ugu talagalay buu yiri haddii dabcan khayr aad wadina inaan ku arko hadday shar tahana inaan dib ugu laabano cimri ii harsan baaban jirin buu yiri 350 sano haddaan jiro mar raba buu yiri dadka aan ka dhashay iyo meeshan ka soo jeedo inaan dulmi iyo xaq darro markaa dib ugu laabto Khalid Waliid baa wuxuu yiri idii baash Khalid Waliid baa baasha dhanba suntii buu ka baday hal mar baa qamandhoosho iyo jarriciye ku timid kadibna caadi buu noqday intuu la yaabay wuxuu yiri shaytaan way ninka kan intuu dib ugu laabtay wuxuu war ninka aan ka imid waa nin shaytaan ah hadda la heshiiyay buu yiri heshiiska la galay muxuu ahaa ilaa 100 kun waxaan la jeedaa 100 kun oo diinaar inay iska bixiyaano waa heshiis marka amaan marka lagu siinayo ibn Taymiyyah markuu tacliiqinay qisadan wuxuu leeyahay wuxuu yiri min as-salafi dadkii hore waxa kamida dad u sameynaya falalka sidaan oo kale ah ama karaamo weeye ama iyagoo ku kalsoon wuxuu nabiga sheegay inay tahay ibn Hajar al-Asqalani markuu Fath al-Bari iimaan wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa in nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la hadlay oo sheegay Khalid bin Waliid inay saa dhici doonto qisadan waxa laga yaabaa inaad tiraahdo Khalid bin Waliid lama tartami karo saxaabi jaliil lama bacdigi karo laakiin waad gogolayn kartaa waxaa jira waddanka UK nin Pakistaniya oo dialogue la galay waa wada hadallada diimaha oo munaadaraadka iyo marka la galayo ninka marka wuxuu challenge ku sameeyay dadkii la fadhiyay YouTube-kaad ku arkaysaa way ku jirtaa qisada iyadoo kaamila markuu isku dayay drinking poison iyadoo diinta loo marka darteed marka uu murmayo ama uu doodayo ilmihim ninkii marka wuxuu sunbaa la hor dhigay waxa la suntan balka bahadaad aaminsan tahay waxaan la sheegay inay sax yihiin suntii uu ka baday ninkii dabcan qisada marka la ii sheegayo aan meesha ku arkay waxa ay 2 sano 3 sano ka hor maraan fogeyn 2-3 weeks aan ka badnayn 3 isbuuc baan waxaan arkay maqaal la qoro leeyahay ninkii berigii sunta cabay weli waa sidiisa dadkanu ka caafimaad badan yahay bimacnaa waa maxay idima lihi hadda sunha laga dhargareer geysa idima lihi ilaahay subxaanahu wa ta'ala iska ilaaliya laakiin waxaan ka wadaa yaqiinta waxay gaari kartaa that level heerkaasay gaari kartaa yani inuu qofku yiraahdo ilaahay iyo rasuulkiisa saasay yiraahdeen waxay yiraahdeen baa dhacaya ilaahay rasuulkiisa waxay yiraahdeen arrinka ma dhacayaan qofkii inuu ka dhaadhacsan tahay heerka markuu gaaro waa marka yaqiinta darajada ugu sareysa uu gaareen waxa kale oo iyadana muhiim ah waxay rumaysan yihiin dadka waa qodobka 8aad القضاء والقدر إلهي جانجوينتيس إلهي با حكمي هبل بعد أنت إلهي با حكمي عذر بايمد إلهي قدري هو ما إلهي با قدري إلهي سبحانه وتعالى تسوني معنى إذا ماها means أما وسائشي وضد اللي جاري لها إن هذا كجابين معنى إذا ما وحجر التوكل يتواكل توكل وإن صوتي التي ما سبحت كلا هديد أدبحديد أدلبستيد shaqadii aad raadaysid albaabada aad garaacid xafiis alburqadaad inaad geed tawakkul lagu magacaaba la yimo asbaabta tawakkul waa qofku inuu inta iska seexdo barkinta dheeraysu yiraahdo ilaahay soo risqi ma ballan qaadan juuni iswataa markiiba dig soo dhihi doona ilaahay soo risqi ma ballan koontado buuxdaan arki doona taa marka waxay khilaafsan tahay nawaamiista iyo loogu talagalay koonkan inuu ku shaqeeyo haddaba qadahaas la rumaynayo dabcan wuxuu leeyahay ibn mas'uud الرضا ألا ترضي الناس بسخط الله horta rida waxa lagu magacaabaa hebel raadi buu noqday marka leeyahay dadka ha ku raali gelinin adoo ilaahay ka caraysiinay ko wala tahmad ahadan ala rizqi illah rizqi ilaahay ku siiyay ilaahay qof kale ha uga mahadnaqin saddex wala talum ahadan ala ma lam yu'tika allah wax aanu ilaahay ku siina cidna ha ku qabsan
hebel baa ka dambeeyo intaas ka badan baa la isiin lahaa laakiin waan aqaan hebel baa ka shaqeeyey waa la ii tashtay inaan nambarka ahaa baa lagu diiday waxba ha dhihin markaasuu wuxuu leeyahay fa ina arrisqa laa yasuuquhu xirsu xariisin risqigan ma keeno qof hanqaltaag badan hanqaltaaggiisa laguma soo dhacsado kow walaa yarudduhu karaahiyatu kaarih qof baa ku diidan darteedna risqigu uma istaago والله عز وجل بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا إلهي قيب وناقيسة عدالة كجرت إنه قيبيه بو إلهي وحو دحدقه فرحدة شيء والبابا في اليقين والرضا يقين مركا أي ما شجرته إرادة عنشو بو إلهي سبحانه وتعالى دحدقه حزننا هداد أركتين مركو قف شكي يحرس كجروه هل كان مركو حان كلبحني قضها رمينتي سوين عجائب تلا ولذلك هداد أركتي هبل بعد أنت مركي وينات رميسنتها ابن القيم باوحو صون نقلنا قصة نين أيا المو أو يهي با مد بعد أنتي هذانا مد كلا أنتي هذانا مد كلا أنتي مركز سيري إلهي سبحانه وتعالى إذا إنك أهم بيقان مية يعني بمعنى وام وكفر ماشي وجدا بيسي صومه قفك إنه رميسية هاي هدي أديك ضد بدن إكاد إنتان يهداد أدو جاجوتي أما قولي هدان ضب لقشيدين قضاها إلهي إني تهي موتلنا مركو مصير ديرانة محيا له معناه ذي هذا ولذلك مركي الحسن ابن علي رضي الله عنهم أي واحد لسوق جالس هذا لأبو ذر ويري أبو ذر باوحيري فقري وان كجعل لها بيري أنت وحيلي لها إن عيرتو بان كجعل لها بيري إن حنوصان كجعل لها بيري إن عافي ما تقبل كدب الحسن علي وحيري رحم الله أبو ذر رحم الله أبا ذر بان له أبو ذر الله نحرس أما أنو سبحان الله بيري من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى شيئا قفكي أرنك أداية أو تلصارته دورشة إلهي باكو دورته إن تحنس إلهي باكو دورته عافماتك إلهي باكو دورته جامرنانت إلهي باكو دورته إن الجواب كاك إلهي باك دورته إن أولاد دادو إسان إلهي باك دورته إن أولاد هشد إلهي باك دورته إن ده إلهي باك دورته إن تقرسد إلهي باك دورته قفك أرنك إلهي أداية قفك وقفك إيمان كيس أبوحه قدبك السقالات dadkan maxaa lagu yaqaan waxaa lagu yaqaan ahlu yaqiinta qodobka sagaalada waa muhiim wey waxay u tabaabushaysan geeri kullu min untha wa in taala wa kullu min untha wa in taala salaamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu inta doonta adigu noolow 100 sano 200 sano ninkii Abdulmasiix 350 sano noolaa waxa doonta noolow maalin geeri ku sugayso waxaan dood markaa ka jirin haddaba geerida ina sugaysaay tabaabashayso u baahantay qofka inuu diyaar garoob markii ninkii nabiga intuu ninkii u yimid nabiga sallallahu alayhi ya rasuulallah mata saa'a horta maxaad u diyaarsatay buu inta su'aashaas weydiin tanna marka waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan wey waliyalik wuxuu leeyahay ahad salaf wuxuu yiri ra'aytu al-jannata wan-naara haqiqatan janna iyo naar ba sida ay tahay ilka baanu arkay buu in hor taaganta sida qofka marka screenka uu kaga daawanayo filimka uu kaga daawanayo uu arkay buu markaas la say ku dhacday markaasuu yiri ra'aytu بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان كو اركب النبي لبديسا اندود ايا waxay ii sida midalan ma aragtay qofku uu marka uu gashanayo oo kale nadaarada uu gashanayo oo kale taas aan ku arkay nabiga indhihiisaan ku arkay soo nabiga iyo ma sheegin inuu nabiga sana jannadii soo arkay markii la dheelmi inuu nabiga naarta uu soo arkay ahlu naarka uu soo arkay ahlu jannada uu soo arkay nabiga indhihiisa indha ii ahbiil nabiga inoo warramay salaatu rabbi wa salaamu alayhi kam min hadith أدوم مقياسي كرتا كم من آية مقياسي كرتا كم من أثر مقياسي كرتا وحلا قياسي كرما هذا مر هديبة وحا أن أذيك سدأيتها عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سأقول فيلم بوليه وحنا كم انتهى وحا أقوم يمسن قضب كتب نادم كسو جبين له وحويه قفك أهل يقينك إله ملاذ وناجيا مقصرين بأنهاي أنا كوكأ ذنوبتنا بدن حافر بدن إنه قرصون باجرة إله إنه أسطره نين إنك نجمد أن جف جل المركب مالها نلشاده معلم مال بيتاج انتهي ما أنت هذا إسكت توصلت عبادة بري وحكى كلا ضادنا هذا يكون مرت مرحلة أهل خير هذا معلم بوحكوك إيمان قلب بكوك إيمان ضدك وخلطوا عملا صالحا وآخر سيء عملك عمل هذا أن نسيدنه وأن ربنا إله الله ارتقنه ومد يسكت رفه وحناكسن يوح خير بدن يوح حن يوح شر أي كجيران من نقام وحايهين وحو إلهي سبحانه وتعالى عنده دون سايتهاي هدنا ملهي يقولوا قارسي سيهاي إن إلهي سبحانه وتعالى أكتيسة
خير كي أنا نكون قوبين ملاذ وين الكادر أحسنتها محيا إلهي سبحانه وتعالى إسجل يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وواحد كتر هذا الدومني إذا كو حد قد بي ورهقوا سننا إن الله يغفر الذنوب جميعا 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 إلى ذنوب تضافية وأرجى آية في كتاب الله جل وعلا هديه بالمخاطرات ومدة كجري ورجانس كول فرنها إلهي سبحانه وتعالى وصل الله هدي قف كزاني وها ورباش استاجيو إلهي وصل الله أنت هر إلهي بأسطورية هدا توجني ما كوش قيسن جرت ور استاجيو إلهي سبحانه وتعالى وصل الله هدي خلادات وين يقعد عين إلهي أنت سو أسطوري سو ما ورما أنت أنت وصل الله بتهجان كدي وصل نفسه محيا لي ربي خالق وين هذا ولي ربي بان ليه إسجا إير يقين تواتن إسجا إير دم بيجا ودافيا هكوسي سعانين دم بيجا إلهي إسجا يكون ودافيا هدي ما أنت قف بين آدمه وكير هذا مركز ديت ما أنت أصلا كوسينا يا الكل وينان كرت إلهي وكير الذنوب تاذا حتى عنان السماء هدي جالس سنتها هدي جالس سنتها هرك بض هدي لا يكتحي توان دافيا مركز ليه أما ملء السماوات والأرض وان دافيا هدي ليري هل كان مركز وحيا الأكسيوني آدي دعولس ولذلك حديثك ابن عمر ورني سفان ابن محرز أوحي أنا الصعود ابن عمر بن السعودي بيري كدي واحد يريبي يري نبى نقص بحي مع ابن عمر يسوق مركا كعنت ساقود الجن نبى نقص بحي مركا سيد وحن كويدي النجوى وفقه أما كوتك أما هذا الأحمر جانبي كوبان أود حي إلهي أدونك يوم القيامة النبي يسوق كهرلي إلهي أدونك مركا وضع هذليان يود النبي كهرلي ما قشبير مركا سيد ها النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ربي إلهي يوم القيامة مركا لجاره أدونك يسوع أسود دوينيه مركو أسود دوي وحله ويدين يا عبدي أدونك يجيو دمبي ما كش زنا ده ما كل عاده حتى يدا ما صميسي هي المحمتي إذا مرين تا ما صميس ويدين مركو يا رب ها يا رب نعم يا رب نعم مركو قرا كدي بيقول هذا وجو نكود دم دافع المهم حي هل كان مركو حقق هذا ليس إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم الدنيا مركز اللي جوجنا وكو قريب وكو فضيحين ضدك وإلهي سبحانه وتعالى وكو قريب حتى نصوم وكو دافع يا ابني الدنيا إنه لو قريب حكم ده محمد بن واسع بيقول لي لو كانت للذنوب ريح هدي ذنبي والباقي قف كسو إنك نجم إذا كدعي وكر يقر لها ما قدر أحد على أن يجلس عندي قف أكثر يسن لها ولا وين لها هذا نصاح أنت مركان ماشي صافر يسو قربا بأفكي كصوب بحي إنده يقول مال خلدم بيقبتين مركان صوبه قربا يقصوب بحي صلاة دي الصبح ما ساكا كسيحدي أنا قدام بقرية هدي بني آدم كان أوري لها أنا قدام بأسكك صعودا أن نقول لها وأتكان لها ذاتك إنس قرى فريسان لكن إله أنه قريب جل وعلا ولك يا ربي سترت معايبي إله أذان أنه قريب لكن وحا ما أنت يقول جرا يوحى أن سمايا مركان ذاتك أجهدين هدي إلهي أمد وهر كيني لها same as the screen كان إذين موقضة سلم إذا كوكو موقل لها وأتكان لها قفك إنه نولاده ولكن سترت معايبي يا رب إلهي سبحانه وتعالى يساق أسطره وأنا قضب كان أبها النهاي إنا فهمنا بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا يقين تهلك ماشي أقصر رئيس قفك إنه جاره هذا عادي أبو بكر عبد الله بن بكر أبو بكر من المزني أيا حواريين توحي وايين عيسى رضي الله عنه عيسى عليه السلام بعد جواب أردقان كده وحي أركان إسقى بضة كجرؤه هرك سا مركا ولا ما إليه وحنا حرية هاي مرنا قنتين بيوتها هوسبو كحرية منا قربها وسارنته مربنا نعمل لي عيا بدي ومركا صوب بحي مركو سا وقا صوب بحي أيا نين حرتي سكمي أيا وكيل عيسى يرصاد دقائق وكيل مركو لقطة ساء قليي لقطة لبعض أنتوا سنقلين بحر عيسو وحن كبقى بيه إن لا تجان مركز يورك عنده سودي بيا قصير الإيمان ورمكاغا أن إيمان كيسو جابن يهي سودي بيري مركز يور رعي وحيري لو أن لابن آدم من اليقين هدي قفك آذانها يقين وكهيسن لها إن لم إذا أنت تنت يعني ووح صوت تايني أدي ديار هذا أنت هيسن لها وحلي هاي مشى على الماء بيوه بكتل سعان الله وابن أبي الدنيا بروني يعني ما يقين قفك إني كذا عسنته وحن إميلي وحبا إميلي كران إنه إلهي دونا مويانا وحن وحبا إما كردين كران إنه إلهي دونا مويانا موضوعا أنا إذا كجباهي بدن وأنا جعلان لها وحا أنشيجي بقولكي بهل هدان كهلي لها وحن إسلاه إلهي سبحانه وتعالى أكتي صحباك كاجهري إلهي وحن ويديسنا يقينته إنه نقول أرزقه أو إلهي سبحانه وتعالى نقدر دتك أهل يقينته دم بيجينا نضاف إنه جواد بر رؤوف رحيم
وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.